السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحاب قيمها بدن هل كان نجد عوانيسان وجهنا الكعرض عاشق قف كين الله اللينا وساحبكين عبد الله محمد عبد CMC مركلة إيه مقال أسب مقال كنا ما أنت وحوق السيا برنامج كعافيماتك وحنا قصو قادم دونا قرها وحبدن كأجو فائدين كعافيمات لجهله قرها وما حيقرأ قروه وحو كمid yahay fruudka inoo soo go'a xilliga xagaaga waxaana lagu yaqaanaa dhadhan wanaagsan iyo midab qurxoon sidaa darteed dadka oo dhami waa ay jecel yihiin waxaana ku jirto fitamiino badan oo muhiim u ah caafimaadka jirka oo aan looga maarmin sida ay qortay website-ka health qaruhu ama xabxabka faa'iidooyin badan ayaa laga helaa waxaana ka mid ah faa'iidooyinka qaraha ee jirka guud ahaan haragga sare iyo timaha kow qaruhu waxaa laga helaa maadada collagen oo ka qayb qaadata xoojinta jirka way ifisaa waxayna ka ilaalisaa calaamadaha duqnimada qodobka labaad waxaa ku jiro biyo badan waxaana hooseeyay colorayska uu leeyahay sidaa darteed waxaa laga helaa firfircooni baruurtana waa lagu jaraa ama waa lagu dhimaa qodobka saddexaad jirka wuxuu ka ilaaliyaa cudurrada kansarka ee kala duwan sida kansarka sanbabaha kan naasaha iyo kan prostate-ka qodobka afaraad jirka wuxuu ka ilaaliyaa xanuunada wadnaha stroga sidaa darteed fitamiinada faraha badan ee ku jira iyo nafciga cunno ee uu leeyahay waxay muhiim u tahay wadnaha iyo jirka qodobka shanaad caafimaadka indhaha iyo sanbabaha ayuu u roon yahay nacfiga iyo fitamiinada lagama maarmaanka ah ee caafimaadka indhaha u roon ayaa laga helaa qodobka lixaad waxa uu kaalin weyn ka ciyaaraa xoojinta raganimada iyo awoodda bacriminta qofka qodobka toddobaad biyaha iyo sonkorta ku jirta qaraha heerka sonkorta jirka ayay xakameeyaan ama ay dheelitiraan sidaa darteed bukaanada macaanka ama sokorta qaba waxaa lagula taliyaa in ay mar kasta oo ay suuro gasho ay isticmaalaan qaraha qodobka sideedaad habdhiska dheefshiidka ayuu xoojiyaa dhibaatooyinka caloosha ee calool majiirka uu ka mid yahay qofka wuu ka ilaaliyaa qodobka sagaalaad caafimaadka beerka iyo keliyaha ayuu u roon yahay waxa uu ka ilaaliyaa inay howlgab noqdaan ama cudurrada kansarka ay ku dhacaan qodobka tobanaad qaraha waxaa ku jirta dheef muhiim ah oo dhiigkarka lagu dejiyo qodobka 11aad waxa uu xoojiyaa caafimaadka iyo koritaanka timaha caabuqana wuu ka ilaaliyaa qodobka 12aad caafimaadka lafaha ayaa lagu xoojiyaa waxa uuna ka ilaaliyaa lafaha jileeca iyo caabuqyada kala duwan ee ku dhaca lafaha intaas waxaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkii caafimaadka oo maanta aan ku soo qaadanay geedka lagu magacaabo qaraha iyo faa'iidooyinkiisa intaan mid lacayna ku kulmi doono waa saaxiibkiin Cabdullaahi Maxamed Cabdi CMC iyo channelka Orod Caashiq oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo.